barqanimadii maanta Soomaaliya ayaa kashay muujado siyaasadeed oo hor leh kadib markii mar qura uu ku dhawaaqay taliyihii booliiska gobolka Banaadir Saadiq John inuu isurtaag ku sameynayo kulanka baarlamaanka isagoo ku dhawaad 7 daqiiqo hadlayay una muuqatay inuu akhrinayo wax ku qornay shaashada kombiyuutarkiisa ayuu yiri doorasho waa in la aadaa baarlamaanka waqtigiina wuu dhacay waa in doorasho aadaan mar rabno inuu dagaal wadankan ka dhaco anigaana joojinaya maanta kulanka baarlamaanka mana rabno boob iyo muddo kordhin waxaa daqiiqada kadib dhacday in Cabdi Xasan Xijaar uu xilka ka tuuro Saadiq John isagoo faraha la galay arrimo siyaasadeed waxaana loo magacaabay taliyihii ciidanka sida gaarka u tababarnaa ee Haramcad Farxaan Qaroole kulankii golaha shacabka baarlamaanka federaalka Soomaaliya ayaa bilaabmay kadib daqiiqado oo hakad galay waxayna golaha shacabka ansixiyeen mooshinka sharciga gaarka ah ee jihaynta doorashada iyagoo muddo kordhin 2 sano ah ugu codeeyay qaab gacantaag ah madaxweyne Farmaajo